nimada ee maamulka loo samaynayo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen ayaa warkan inooga soo dirtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. munaasabad qada sharaf ah oo isugu yeeray jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee ku nool dalkani Kenya ayuu ku sheegay Bashiir Shariif inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka loo samaynayo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. culamaa u diinka waxgaradka aqoon-yahanada iyo jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada bartamaha Soomaaliya ee ku nool dalka Kenya ayaa aad u soo dhaweeyay musharaxa iyaga oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana uu yahay musharax Bashiir qof ku haboon xilkaasi. madaxweynaha musharaxa oo presidential hopeful oo gobolada dhexe waxaan u sheegaynaa sheekha uu u sheegay haddii cadaalad la helo dadku waa qanacayaan مسؤوليتنا وحقوق أساسا عدالة عد والبوم أنت مسؤول هيسا صومالي أنت بدن وحقوق بنات هاي نبى وحلي ركور وحلي وحاجنا وحيسنا أدا وحاجنا وحكسي هدي أمدا وحودنا لوداية وحي هدي هتقعدنا حتى مشاركة ما أغونت سكول كأكو جيزة سمعت بعد يلا نيسا دتكون واكو جعلانا هنا دتك أشياء waxaan ka aqaan saddex arrimood oo Bashiir aan ku aqaan oo madaxweynenimo hadii hadda la isu sharaxayo dadka sharaxayo uu waliba uga duwan yahay intii hore aan soo aragnay baan anu rabaa inaan sheego qodobka koowaad Bashiir horta dadku waa wada yaqaanaan 24 sano siyaasad kama qayb gelin dagaal qabqablana kama qayb gelin xilna kama qayb gelin oo nin xil qabtay ma ahayn waxa fareeyo dadka dibadaha iska aadan Soomaali ka warqabin ma ahayn haddana 24 sano dadku dhex joogo gobolkan tag nimayo waxaan ii sheegaya horta uu ducaynayna Bashiir in Ilaahay ku guuleeyo dadka raba goboladii dhexe maanta inay wax ka noqdaan ana imid iyo noon biyaaj wax fiican ma qofku waa in la yaqaan waa in goboladu yaqaaniin waa in dadku yaqaan Bashiir waa nin istaahila inuu maanta goboladii madaxweyne ka noqdo waa hadii la rabo nabad iyo qabiilkan Febraayo soo galay aniga halkaas 90 nin walba waa yaqaan wuxuu yahay meel inaan bubaaso barda ku duwaasho ma ahane iyo Nairobi madaf waa adil dalku Bashiir oo kale iyo wax la mid ah hogaamin lahaayay waa goboladii waa dadkaygii waa ku dhashay waa naqaan ma garad إلهي بهرته وعبيه وأنا أقول دعينينا أنا أبيدنا وحمل نقطه وحنوم هذا علينا نكسر ولي جوشان دناها أو ربنا أيهين دنا إنا وربا أي مضنتاي وأمة علينا عد كستا أولادتي gobolada dhexe inay is soo sharaxdo xaq ay u leedahay shakhsi qaasa kuma xira qolo qaasa kuma xira cid kasta ayaa mudan inay is soo sharaxdo musharaxnimadiisa aadan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay ku soo dhawow ciyaartooydu markay cararayaan midka ayar rucleeya ee ugu dambeyn si fiican u carara ku guuleysta orodka gabagabadii kulanka ayaa waxa ka hadlay musharaxa madaxweynenimo ee u taagan xilka maamulka loo samaynayo gobolada bartamaha Soomaaliya Bashiir Shariif waxa uu sheegay inuu wax ka qabanayo colaadaha ka jira qaybo kamid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya isla markaana uu furi doono dib u heshiisiin waxaan taa ku darayaa anigoo ah musharax gobolada dhexe oo Soomaaliyeed doonaya dalkiisa dadkiisa inuu qabto waxaan rabaa Soomaaliya maadaama aan ka dhashay oo aan nin Soomaalidu aad u taqaanahay oo guri walba Soomaaliyeed u saga xirnaan gali karo inaan waxaan qaban karo aan u qabto madaydaas waxaan idin sheegayaa anigu xil jacayl ma hayo been idin sheegi maayo daar dheer oo Nairobi ka dhistana mar rabo mid xamar ka dhistana mar rabo waxaan rabaa hambada Soomaaliyeed hartay waxaan badbaadin karin wax ka badbaadiyo إلهي بحورك يجوب أورك يكور قبطان وعلى النور نك أورك يسقل على إله وأركي بالي وحن دي شيء أورتي إنك عديني إلهي يجوجي إلى أنا حول كرمين
oo waxaan rabay dadka Soomaaliyeed inaan badbaadiyo waxaan badbaadin karo ilaahay wax badbaadiya qof ruuxima waxaan xoogaa loo ahay baadi iyo magaalada inaan sadaqnayn Intisaar Saalax Xuseen TV-ga Somali Channel magaalada Nairobi